kuwan waxa aan kaga duwan yihiin baan ku sheegi Sheekh Shariif baan aan saaxiib ninka uu garab istaagay Sheekh Shariif baa Sheekh Shariif xaakimti baan garab istaagay asagaan garab istaagay marka dambe madaxweynaha laga dhigay laakiin markii ay noqotay villa Soomaaliya ninkii joogo gubernatoora arsaba farta loogu yeeri ahaan inuu u dhaqdo on tilaabo aan la qaadi karin iyadoo Ethiopia aan maaragtay aan laga helin maxay ahayd Ethiopia raalli ka ahayn oon isku qabsanay aniga asaga intaan ka tegay aniga waxaan waday Nicholas Bakila ninka la dhihi jiray oo Burundian ah oo dadka dhaadheer oo Soomaalida ah yaan inta kaga tegay oo Sheekh Shariif habeen la soo saxday aniga inta waxaan lahaa war qaran baad magaciisa haysataa war qaran ninka haysta awood buu haystaa waxaan xonka oo daaftanayto iyo waxaan ordahay oo dhanbo daayiraan ku garab ordahay oo iska ka dhigay inay yihiin daxuri libaxiin war waxba ma ahe iska celi way socon weydii dhiisana ku sheegay Xasan Sheekh Maxamed markii la soo doortay waan soo dhaway laakiin markuu jigjiga ka dagay sida iyadoo xamar ay tahay kiliradii Ethiopia mid ka tirsan oo Tigreeda aysan farta ugu yeerayso war aniga dad iska celiya rag baa tiina leedinga markaanima badnay adkaado oo dad iska celiyo ajnabiga neeto idin isku taragal Carabta iyo Afrikaanka iyo Yurubka iyo cadaanka meel ahaayeen dhanbo idan xumaynayo oo idan dhibahayo umadiina inay badbaadaan u diidan you have the sovereignty waa qabtaan dad UN kan dhaxaysta ka hadasho meesha ugu dambeeyaysa intaas horta anaga isku weynay oo isku yaan isku daba marnay kuwan waxa aan ugu siiyaan ku sheegi aan garab ugu noqdaan ku sheegi kamana qarinayo Abdullah Yusuf adeerkay buu ahaa dhalasho hadii la Soomaaliya markuu reebel buu ahaa farmaajo aan kan oo kale dhaan Abdullah Yusuf baa aniga farmaajo dhalasho iga dhow qay kalaamad aan ku sheego todobari afar Ethiopia markuu joogay meesha Ethiopia ciidamada safka hore soo galay u yiraahdo ninka dagaal ku bilaabay aniga oo garsaba oo adow Tigray lama soo gelin karo nidaamka markaas Kenya ka taagnaana wuxuu ahaa waxaan kugu bilaabay mutual defense pact baa jirtay labada wadan marka danaha hata Kenya ay fulileed waa mid Ethiopia raali ka tahay hada 2006 waa aragtan anaga xuduudahanada dibka ee lagu sameeyay maxay maxaakiimtii oo ay ku sameeyeen ciidamada Kenya waxaan ku soo wadaa nimankaasna waxaasan oga cararay ajnabi inuu ka taliyo Soomaaliya yaan oga cararay Tigray inay ka talisan oga cararay Kenya waxaan aniga Kenyan baan laakiin raali kamay inay faragelin ku sameysay Jamhuuriyadda Soomaaliya oo xad dhaaf oo baabi'inaysa jiritaankii qarankii Soomaalida kun ay kaga duunaadeen Carabta 20 sano horteed baan aniga aan bilaabay xaaskayga aniga gurigayga dhaxdiisa maxaa dadku waxay moodi jireen marba hadda Carab waxa ka sheegtay in Nabi Cali sallallahu alayhi wasallam ka sheegtay war waa mujrimiin war kuwa Kristaan ay baa jira war wax ka xun iyaga adduunka ma jira war cadow Islaamka ay qabaan oo kuwa ka daran ma jiraan 20 sano horteed jiraan maanta Ilaahay wuxuu qadaray inay nin kastoo dhan buu ogaaday dibka ay ku hayaan ummadda Islaamka oo qaranka ku nool maxay adduunka ku nool waxaan oran jiray war nimankan iska celiya dibkeena bay ka qayb galeen 7 dagaalkii bay qayb kaga jireen in la inaga adkaaday yay raali ka ahaayeen magaalkii in la burburiyo Soomaaliya sifa khayraadkeeda aan loo soo saaray shidaalkeeda iyo dekedaheeda iyo waxa dhammaan yaan aan 15 sano horteed aan ka hadlay hadday Soomaaliya ogaatay dhabta u tagtay inta lama ogeen marka aniga waxaan arkay saddex shay bay sameeyeen inta lagu tagay maxay ahayd ninka la yiraahdo Sheekh Shariif yaan ku yiri hay'adaha Nairobi joogan oo UN-ka imaada dhaxmar mas'uul weyn ma imaan waayeen dadkaada waa inay ka dhex muuqdaan xafiisyada ay ku leeyihiin meelaha kale haddaan baa laga keenaa dad kale oo dhan baa la keenaa Soomaaliya marka waxay noqotay wadan gumaysi ugu jirto hay'ada UN iyo samafal oo aan badoonayn inay isbedesho nabad la helo maxaa shaqooyinkoodii waa meesha ka baxaya tanu tiibana hatta warqadii aan shaqada American oo dheer yeed kuwan way qaateen talada way qaateen taladii Tigreedi kow farmaajo wuxuu ku soo galay Tigreedi wuxuu ku soo galay waad ogtahay meesha markuu tagay Zakariya intuu hadlay isku wada tagay sida lagu soo disable farmaajo taas
waa ninka safdad iyagoo ku jiraan diiday inuu ka qaado salaanta ninka yidhahda gabrana horta dhegeysalkii aan ku sheegay gabrana wadahadalkii laga wada hadlahay Istanbul anoo gudoomiye xigeenka baarlamaanka iyo wasiirkayga arrimaha dibadda yaan ku yiri ilaa waan ku soo raacaya waan imaanay meesha ku talagal meeshii baan tegey wax alla wixii Soomaali laga sheekeysanayo mustaqbalkeeda dhanba gabre iyo tiimkiisa xabashi baa ku dhex jirta waan iyaga laga qaataa maxay ahayd ogolaasho laga qaataa ninkii uu salaan ka diiday farmaajo markuu soo galay markii ugu horeysay meeshii hal ay dhaafiyeen u yiri magartalkii tigreedii hadduu ka hor imaaday kow cudurkii meeshii laga soo miisahayey hadduuba al adeeg uu yidhaahda kuwan dhib un bay inoo hayaan mooga Soomaaliya wanaag kale uma hayaan waa tiig horta mid ayadii laakiin waa dhiibeen farmaajo waa qalbi dhagax ay dhiibeen taana ku soo wada ma aha inay maaragtay ay kulli taa sheekadeeda dhabta ee waa la ogaan doonaa mana kulihii bari bay ka yihiin oo maxay ahayd wax dambi ay galeen malaha ku mari dambi ugu weynaa bay galeen soo gartay ma laakiin markii aniga aan weydiis ilaahay baa iga sareeya asagana wuu ii dhaartay Abdi Xaashi ayaa ii imaaday gudoomiyaha aqalka sare sheekadii loo sheegay oo lagu dhibayna ii sheegay khiyaano badan baa dhacday in saa loo khiyaanana ma ahayn marka waxaa loo baahnaa inuu markasta ku sheegay musharaxi kartaa qaabku ii sheegay waxaa laga dhaadhiciyey inuu nin daawo xagga doonanaya uu yahay oo basboor waxaa lasoo hagaajiyey Ethiopian oo diblomaasi asaga uu haystay la yiri oo lagu soo diray sabab shaaka shaqeey inta badan oo sargaalka maxay Ethiopia oo tigreed u shaqeey marka iyaga aniga hadii ay taladeeda ahaan lahayd xataa asaga wuxuu waraysa wuxuu oran lahaa hallay hor keena aniga ha igu yiraahdo ana raba inaan tago oo qalbiga ha yiraahdo marka khaladna wuu dhacay weymna wuu dhacay oo si ay uga gelgelin karaan oo waxa fulaari ma artay gelgelisho kaaga ma go'do ma gartalkii laazim inuu wax badan ka hadlay noqon doontaan laakiin waxyaabuhu ii sheegay nin aan nidaamka dawladnimadii ay ka hoostay laakiin la sirayna meeshii way iga yara muuqatay aniga tasalkeeda waan gaarina maxaa haray iyagana isma ogeen xataa dawlad ahaan ya waxaan hadhow halka soo bixi doono ani hadda aan diyaar u ahayn inaan si faafiyo yaanka nimankii tigreedii way meel bay ku xireen imaaraadkii iyo carabtii meel bay ku xireen al sacuudi cadaankii iyo galbeedkii haysom iyo meel bay ku xireen haatan waxa weeyaan UN iyo systemkoo dhan waxay leeyihiin waa inaad laazim u soo gurtaan xamar hadii u soo gurin ikhtiyaar idinkaas kale hawadoodii bay soo ceshteen oo meel kale laga maamuli jiray marka haatan meesha waxay ku jiraan oo ay galeen xalalna oo maaragtay ay dawlad kale iska ahayd oo reer galbeedka wax intii la imaado wax la soo gelinayo wax laga bixinayo waxaa nabad sugidda iyo niisadii iyo kulli hadda iyo nimankii maxay ahayd revenue collectionkii way dhex galeen waxaa ka socda kulli inay ogaadaan marka horta isbedel baa socdaa xawliga aniga aan jeclaa ugu socdana uma socdo laakiin isbedel baa socdaa qarannimadii ay soo noqon haysa in yar ay u soo noqon haysa oo wadamo waaweyn iska daa Ethiopia wadamo waaweyn lagu leeyahay annaga qaranka annaga ayaa waajib naga saaran yahay adigana ima tilmaami kartid oo laga diiday Ingiriiska oo laga diiday Faransiiska wax kasta oo markay haysamada ay irinayeen wadi fahmtay soma marka aniga xiniyihii aan rabay in ay muujiyaan ilan qarannimada keenta taayada ciidan ma keeno fara badan oo ma keeno wax kasta oo mar badan qaran tahay hadda koorna Soomaaliya ku war Charles de Gaulle oo dhulkiisa la haysto yaa ka adka Winston Churchill iyo ninkii la oran jiray FDR Franklin Delano Roosevelt madaxweynaha Mareykanka ah midna wuxuu prime minister ka Ingiriiska ah wuxuu kaga adka ma ogoli wax la yiraahdo meel laga mari karo ma jiro marka qarankii baa haysta magaciisa oo adduunka isoo yahay marka international relations ka saaska hadi marka u sii dabagalo midda saddex afraad oo wehelisana waxa waaye tuuganimadii baraarka cadeed oo dhulkii hantidii iyo wixii oo dhanba la boobay hadda meeshii ma jirto ilaahay baa naga sareeyaa laakiin hadda laftirkeeda waxaa jirta mudane hanti fara badan oo qaranku u leeyahay oo la sheego in lagu bixiyo meelo aan munaasab ka ahayn sida in maamul goboleed lagu rido in waxyaalo saas oo kale lagu sameeyo horta aan ku sameeyay dhigeysanaa ku sheegay waqtiga hore waxaa jirtay maamul goboleedyo iska dhaadhiciyay inay iyaga qaranka matalaan oo 5-6 wadan ay noqotay Soomaaliya oo ninka jooga garow oranay maxaad ii sheegaysaa xamar ninka jooga no federalismkii revolutionka way adduunka dhan buu ka jira
laakiin gobolka unbaa dakhliga yar un waa economic devolution waa xorriyad lagu siiyey in dakhliga ka soo baxay meesha ay horumarkaasayto in maarata dadka loo soo dhaweeyey maaha in adiga intaa tagta wadamo kale dibadda aad la heshiiso oo caynkaasoo kale aad samaysa in lala dagaalamo kuwaa sooma oo laga qaado xukunka laga qaado marka in lacag lagu bixiyo way ku saxsan yihiin baad leedahay dhegeystaana ku sheeg horta waxyaaba mogta waxaa iska jira statecraft oo wadooyinkii laga hadla aan ahayn ma garata halkii wadan adduunka laga hadlana malaha waxay kula tahay dowladda Kenya inayan lacag fara badan hoos loo bixiyo ay bixinaynin national intelligence-ka laakiin Garissa County in lagu soo dumiyo lacag kuma bixin karto sana ku sheegi doorashadana waxaan ku sameynaa waddan kama hayn maalin marka dowladda tahay madaxweynaha meesha ku jira aad kama hayn maalin shakhsi ashkhas jeebkooda kama imaan national intelligence-ka waddan kastoo adduunka la joogo slash funds baa jirtaa oo qaranka arrimihiisa muhiimka la mariyo wada garta sooma oo treasury-ga aan la marin lacagta military intelligence Kenya iyo kuwan national intelligence Kenya NIS ma waxaa lasoo mariyaa baarlamaanka oo ma audit baa lagu sameeya maya taa iyada mogtahay ninka waxaan ka maqnayd dowladnimada Soomaali ka maqnayd muddo dheer badan marka wax markii aad ka hadasho saanta lagu fiira lagu qoslay adduunka iyo iyaga ka dhigaan qarankii hantidii warankii aanka no dowladda waxay qabtaa dowlad kastoo adduunka joogto arrimo iyada khaas wey hoos baa jirta oo national interest iyo strategic national interest lagu ilaaliyo sharcigu uu ogol yahay meel kastaba adduunka ka jirta maba la sameeyo audit laguma sameeyo anaga hadda audit laguma sameeyo kasama lacagta mooy markuu xukunku haystay iyo hadda maalinta la qaybinayay markii ay Jubilee soo galeysay national audit baa lagu sameeyay maxaa jeeb qofka imaatay kama jeeb qofka imaatay wada saxsiin baa leedahay qasab inaad qasab qarankaada aad ku ilaaliso oo jaajuusinta adiga ku soo jaajuusayso kuwa qarankaada ka soo horjeedaan iyo wax kasta oo dhan ba lagu isticmaalo migarta halkay oo operation dibadaha laga fuliyo Iran contra maxay marka Mareykanka ay la dagaalamayeen baalki hashish hata way intay gadeen oo drugs ay sameeyeen jiraan contra Iran contra magreesma Iran contra waxay bal fiir hada Google gare waqtiga Reagan waqtiga yarna haya maamul goboleedyada iyo waxaan rabaa Soomaalidu iyo dawladda federaalka xiriirkoodii ma isku jahliga jiro oo fara badan yaan isleeyahay hal fahmo oo halaga Soomaalida aad u aqli badan waay marka waxa uu sheegtay waan hada social media waxa saytu waxaan inta badan ugu dhex jira waxa weeyaan in wax intaan u sheegno wacyiga uu koro oo wacyiga uu kordho oo aqoonti ay kobcada maamul goboleedyada waxa weeyaan hadday isku dayaan inay qaranka lid ku noqdaan oo cadowgii qaranka oo dibadda ay xiriir la yeeshaan imaaraadka waxay la dagaalamayeen qaranka Soomaalida waxay la dagaalameen 77 wixii ka dambeysay Sacuudiga qayb badan bay ka qaateen nimankaas oo dhan haatan Soomaaliya inay kala burburiyaan bay rabaan meeshan bay nala joogaan mukhaabaraadkooda iyo wax kastoo dhan oo lacag la wareegayaan wixii la shaqeynay laazim inaad adigana aad jartaa wada garta sama ana jartaa wadan hadda intaad isku dayda orod isku day maxay Kenya inaad strategic interest in Kenya aad dhaxgal gasho cadawga Kenya maartay is haystaan oo dibadda isku haystaan inaad dhax orod waa lagu waan maalinka dambe iska raafac kale ana ku sheegay sax waa lagu waan dadka la waayay oo Ingiriiska iyo Mareykanka iyo kasto waxyaaba dhaca oo dhanbo waxa qarankii baa la ilaalinaya strategic interest qaranka ma haystaan strategic interest qaranka ataa yes they do that wali ma arag Soomaali ma xasaa committed oo inta koreys kun iyaga wali waxaan sii jeclahay in calo adeeg oo ka sii bato oo markaan anaga is aragno oo isu tagno aniga khayri iyo farmaajo isku tagno dagaal baa naga dhaxay markasta oo dhammaan leeyahay war meeshan ay leeyahay ma aan tartiibina waan wadnaay laakiin xawliga farada badan ama ma aragtay anna is leeyahay may ka sii badiya marka waxaan ku sheegi maxaa siyaad baray ilaahay u naxariistay wadani buu هذا عبد الله اسمه ودني بها عبد الشهيد اسمه ودني بها اسمع لكم ما يفرح يرجع اسماعيل ابو بكر يرجع سوجي ودني بها على سبت الرمان اللي dadkii
dadkii baanan ku jirin dad luqadana soo bartay cilmiga maanta jirana ma jirin aqoonta maanta jirtana ma jirin wareegga kusoo wareegin ma jirin laakiin qaranimada iyo wadanimada waxaa jirta wax gooni iyada u laakiin hadda waxaa soo baxay dad degree baan haystaa le maraykan baan ku soo noolaa yurub baan ku soo noolaa ingiriis baan ku soo noolaa meel kasta baan ku soo noolaa oo dalaal iska